Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan halkan kugu soo gudbinayaa taariikh kooban oo ku saabsan mulkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg iyo macluumaad ku saabsan aasaaska shirkadda Facebook. Mulkiilaha shirkadda Facebook magaciisa oo dhammaystiran waxaa la dhahaa Mark Zuckerberg. Waa muwaadin Amerikaan ah. Waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1984. Waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ah asagoo ka bartay culuumta kombiyuutarka iyo cilmi nafsiga. Waa aabe 2 caruur ah leh. Waxa uu dhaxday haweeney Mareykan ah oo asal ahaan kasoo jeedo dalka Shiinaha. Mark Zuckerberg waxa uu yaraantiisaba jeclaa barashada kombiyuutarka. Asagoo dugsi dhexe ku jira ayuu bilaabay inuu barto computer programming. Sanadku markuu ahaa 1997 waxa uu jiray 13 sano. Waa markii uu hindisay aalad lagu wada xiriiri karo computer network taasoo gurigooda u suubiyay. Sidoo kale asagoo da'yar buu geemamka kombiyuutarka lagu ciyaaro soo saaray. Waa sababta ka dhigtay Mark inuu hindiso mid ka mid ah baraha bulshada ugu caansan dunida, Facebook. Waxaa halkii maalin soo booqdo 1.62 bilyan oo qof. Mark Zuckerberg iyo asxaab kaloo la dhigan jirtay jaamacadda Harvard ayaa lahaa fikradda aasaaska shirkadda Facebook. Mark inta uusan Facebook soo saarin waxa uu soo saaray aalad la dhahaa FaceMash inta uu dhiganayay jaamacadda Harvard. Aaladan waxaa loogu talagalay in barbardhig lagu suubiyo ardayda kuwooda shidan, laakiin arrimo amni awgood jaamacadda waa ay ka xirtay aaladan. Kadib jaamacadda waxay ogaatay Mark Zuckerberg inuu yahay shaqsi hal abuur leh, wayna ku garab siisay kamera dhalinta hadafkiisa. Febraayo 2004 ayuu si rasmi ah u soo saaray aaladda Facebook. Shirkadda Facebook daafaha dunida oo dhan ayaa laga isticmaalaa. Dhaqaalaha ugu badan waxa uu ka soo galaa shirkadaha xayeysiimaha ku suubiya. Mark Zuckerberg waxa uu noqday bilyaneerkii ugu da'da yaraa sanadku markuu ahaa 2008. Waqtigaas da'diisu waxay ahayd 24 sano. Sidoo kale 2010 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta wiilka sanadka. Mark Zuckerberg hadda waa bilyaneer, waxa uuna ka mid yahay taajiriinta caalamka. Hadaladiisa waxaa ka mid ahaa inuu yiri, waxa aan rabno ayaa ah in Facebook uu noqdo aalad lagu kalsoonaan karo, dadkana si fudud u wada xiriiraan. Aniga page-kan waxaan bilaabay anoo 19 sano jir ah, ganacsina waxba kama aqoonin ayuu yiri. Ugu dambeyntii waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan oo uga hadalnay taariikhda mulkiilaha Facebook Mark Zuckerberg. Fadlan kanaalkan haddaa ku cusub tahay kusoo biir, asxaabtaadana la wadaag. Mahadsanidin.